Bismillahi Raxmaani Raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabtayda waxaan jeclahay inaan halkan kusoo gudbiyo barnaamijka bakhtiyaa nasiibka ee dalka Mareykanka ee loo yaqaano Green Card Lottery DV Lottery. Barnaamijkan runtii waxa weeyaan barnaamij lacag la'aan ah. Waa barnaamij dowladda Mareykanka ugu tala gashay inay sanadkiiba mar ay dunida inteeda kale ciddii jecel inay kuna shaqaysato kuna noolaato Mareykanka ay u ogolaatay dalku gal lacag la'aan ah, taas oo keliya ay ku xidhan tahay inuu qofku nasiibkiisa tijaabiyo. Runtii waa barnaamij aad u fudud, ay ku xidhan tahay inuu qofku website-ka dowladda Mareykanka ugu tala gashay ee saxda ah inuu ka buuxbuuxsado, iyadoo ay aad u fududahay buuxbuuxinta qaabka loo buuxbuuxsanayo. Shuruudo saa aad ugu badan ma jiro marka laga reebo sawirka oo u baahan si taxaddar ah qofku inuu u galo iyo macluumaadka oo uu buuxbuuxsado. Marka waxaan isku dayi doonaa bal website-ka saxda ah ee dowladda Mareykanku ogoshahay in la iska diiwaangeliyo, kaas oo ah kaliya waxaa u baahan tahay inaad tagto Google aad ku qorto halkan, dabadeedna aad ku qorto halkan DV Lottery dhab ahaan sida aynu sheegnay waxaa jira website aad u fara badan oo fooya ama been ah oo ay ugu tala galeen in lacag laga shaqaysto. Marka aad DV Lottery aad geliso waxaa kuu soo baxaya website aad u fara badan oo been abuur ah, laakiinse kan aynu rabno ee saxdii waa kaas ka laga buuxbuuxsanaya. Waxaan isku dayi doonaa bal inaan hadda galno kaas, dabadeedna aynu buuxbuuxsano si ay u fududaato qaabka ama aad u aragto qaabka fudud ee loo buuxbuuxsan karo. Waa kan page-ku hadda dvlottery.state.gov oo government u taagan goftu. Halkan entry instructions baa yaala oo mar walba halkan waxaa muhiim ah inaad eegto sanad kasta, waayo wixii instruction ah iyo wixii lagu soo kordhiyey iyo wixii shuruuda ayaad halkan ka eegi kartaa. Waana muhiim inaad eegtaa halkan sababtoo ah wixii sanadkan lagu soo diray ayaad ka arki kartaa. Marka aan ku noqdo hadda page-kii, halkan waxaa isagana yaala waxa la yidhaahdo photo tool. Photo tool-ku wuxuu kuu sharaxayaa qaabka sawirka iyo nooca uu yahay ee lagaaga baahan yahay. Haddaan ku dhufano hadda waxay noo soo baxaya waa qaabkan, isla intaas baa ku taala, intaas laynooga baahan yahay af Soomaaliyana waa kan. Page-ka si buuxda u dhammaystiran isticmaal oo labiskaaga joogtada aad u xirato, koofiyadaha xidhan. Sawirku waa inuu JPG ahaadaa, waa inuu cabirkiisu 240 ahaadaa. Sawirka lottery-ga requirement-ka ama shuruudaha waxyaabaha la iska rabo DV Lottery photo validator. Bal aan aragno sawir ahaan qaabka uu yahay. Waa kan cabirka la iska doonayaa, waa inuu dhankaana 600 pixel ahaadaa, dhankanna uu 600 pixel ahaadaa. Inuu si toos ah oo aad u wajahdaa kamarada sawirka aad qaaday. Kadib waa inaanad ku samaynin wax taabasho ah ama wax Photoshop ah ama wax sawirada wax ka bedeli kara, waayo lama ogola in laga bedbedelo ama la taabto. Sida kan oo kale waa inaanu sidan dhinacyadan iskugu ciriirsanayn, waa in aan la taaban, waa in toos ahaadaa sida kaas oo kale. Sawirku hadduu sax ku noqdo waa ta ugu muhiimsan. Aan ka gudubno, waxaan u gudbaynaa qaabkii buuxbuuxiska ayaan dib ugu noqonaynaa. Baan leenahay sawirkii weynkaasi. Halkan waxaa yaala gelitaanka page-ka la buuxbuuxinayo. Halkana lagu dhufanayaa begin entry. Markaad tiraahdo ayaa waxay noo soo baxaya markaa foomkii la buuxbuuxinayay. Waa kan page-ka markuu san kugu soo baxo waxaa la gelinayaa qoraalka halkaa ku yaala koodhkaas UT5UAB. Submit baad leedahay, dabeetana waxa kugu soo baxaysa foomkii baa kuu soo baxaya. Page-ka la buuxbuuxinayaa ee dowladda Mareykanka ugu tala gashay in dadku foomkooda kusoo buuxsamaan waa kan, maadaama aan website-kii saxda ahaa ku jirno.
number 1 waxaa laga bilaabayaa waa halkan qofka magaciisa oo saddexan inuu halkan ku qoro. Waxa usoo horeeya waxa weeyaan last family name, magaca saddexaad ee ugu dambeeya, sida mathalan Cabdiraxmaan, Cabdillaahi, Cali. Halkan Cali baa halkan gelinaya, halkana waa Cabdiraxmaan, halkana Cabdillaahi. Waan ka gudbayaa. Haddii aad gabar tahay kanaad ku dhufanaysaa, haddii aad nin tahayna kanaad ku dhufanaysaa. Haddase waxaan ku dhufanayaa mail. Waqtiga dhalashada ayaa halkan gelinaysaa, bishaad halkaa gelinaysaa, maalinta 18, halkana waxaa ku gelinaysaa sanadka dhalashada. City where you were born waxay ka dhigan tahay magaalada aad ku dhalatay, meeshaad ku dhalatay. Waxa weeyaan Hargeysa. Country, qodobka shanaad, country where you were born, dalka aad ku dhalatay waa Soomaaliya. Bartanaad ka baaraysaa ilaa intay kaaga soo baxaysa Soomaaliya. Soomaaliya waa tan, waad ku dhufanaysaa. Qodobka lixaad waxa uu sheegayaa country of eligibility for DV program, dalka eligible-ka ama dalka ay dowladda Mareykanku u ogashahay inay ka qayb qaadan karaan DV lottery-ga. Wuxuu yidhi are you claiming, waxaad sheeganaysaa are you claiming eligibility based on the country where you were born, dalka aad xaggaa hore gashatay ee aad ku dhalatay miyuu eligible ku yahay oo loo ogol yahay inuu buuxsado dalku galka ka dooranaya. Laakiinse hadda yes baan nidhi. Waan ka gudbaynaa sawirka qaybtiisa weyn. Halkan kana ku dhufanaysaa, waa kaas. Sawirka markaa geliso. Qodobka 8aad waa mailing address. Mailing address-ku runtii waxa weeyaan waa qaabka hadhowto lagugu soo jawaab celin karo. Kaas waa optional, care of waa ka gudbi kartaa. Address line-ka koowaad waxa weeyaan waxaad oran kartaa postal card. Qodobkaas postal card, no postal card baan leenahay. Dalkana waan dooranay. Country where you live today, hadda dalka ku nooshay waa kee? Waa isla kee. Phone number waa optional, waad gelin kartaa lagala soo xiriiro 252. waanad ka tegi kartaa, waa optional. Emailka gelinaysaa halkan, confirm emailka. Qodobka 12aad waxa uu what is the highest level of education you have achieved, tacliinta ugu sareysa hadda aad gaadhay waa tee? Primary school only, high school no degree, high school degree. Haddii dugsi sare dhamaysay waxaad taabanaysaa high school degree oo u dhiganta macnaha kelmadaas waxay u taagantahay Mareykan ahaan shahaadada dugsiga sare laga qaato, amaba se haddii aad jaamacad dhamaysanayo university degree baad odhanaysaa, iyo hadba levelkaagu wuxuu yahay waa ka gudbaysaa. Qodobka 13aad what's your current marital status, miyaad guursatay mise maad guursan? Haddaanad guursan unmarried baad odhanaysaa halkaa. Deetana halkan soo socota ayaad odhanaysaa haddaanad guursan number of childrenskana 0. Hadda aan idhaahdo mathalan haddii aad guursatay oo kale married, deetana married odhanaysaa, number of childrenka waad gelinaysaa markaa. Deetana wax kale oo meesha inaga yaala ma jirto. Waxaa la continue. Page-kan labaad waxa uu igu soo baxay waxa weeyaan qofku hadduu married idhaahdo waan guursaday idhaahdo waxa uu soo baxaya page labaad. Page-ka labaad buu haddana sii buuxinaya. Page-kan labaad waxa weeyaan macluumaadka qofka. Halkan marka aan idhi married waxaan odhanayaa unmarried, deetana 0 baan odhanayaa, continue. Markaan continue idhaahdo macluumaadkii oo dhammaystiran ayaan geliyey baa halkan kasoo baxaya. Dib baa u check garaynaysaa. Last name family waxaa Cali Cabdiraxmaan, middle name-kina Cabdillaahi, mail buu ahaa
haddii wax qaldan yihiin baad dib u check garanaysaa. Prestationkii Hargeysa Soomaaliya photograph received buri waa la helay. waa optionskii macluumaadkii kale. halkana waa Soomaaliya. phone numberkii emailkii wuxuu yihi emailka waxaa loo isticmaali doonaa in lagu siiyo macluumaadka dheeriga ah ama lagu soo diri doono ama lagala soo xiriiri doono. University degree weyn unmarried number of children hooyada haddaan idhaahdo imkaas pageka u dambeeya oo uu kuu soo saaro waa muhiim. pagekaasi ama waad daabacanaysaa ama waad kaydsanaysaa. successful buu yidhi macluumaadkaad kaydsanaysaa ama daabacanaysaa waa inta halkaa ku taala. haddii computerkaaga ku xiriirsan yahay printerkaas ku dhufanaysaa print. haddii kalena sidii aad rabto waxaad kaga qaadi kartaa print screen ama snapshot deetana waad save garaysanaysaa. macluumaadkaas waa muhiim si aad ku kaydsan kartaba hadaad doonto intaad wada highlight garayso copy aad tiraahdo ama copy aad tiraahdo deetana ayaa ku kaydsanaysaa computerkaaga inta weli soo furto. bas macluumaadkaaga waa kaa waxaa leedahay save. waaye nabaday. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.